kulan wacan saaxiibayaal halkan waa barteen YouTube-ka ee ka habari qodobada wararkeena waxa kamid ah baarlamaanka Soomaaliya oo iska dhex doortay guddi cusub oo ka shaqeynaya doorashada guddoonka golaha shacabka xilli maanta kulankoodii ugu horeeyay ay ku yeesheen xarunta Villa Hargeysa wararkii ugu dambeeyay doorashada Soomaaliya ayaan idin hayaa ciidamo isku dayaya inay joojiyaan doorashada golaha shacabka oo ku sii jeeda degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo Villa Soomaaliya oo abaabul ciidan wada ayaan xoga idin kaga hayaa wararkeena kalena waxaa kamid ah midowga Afrika oo wakiil cusub u soo magacaabaya Soomaaliya kadib markii ra'iisul wasaare Roble uu dalka ka ceeriyay dhawaan wakiilkii hore ee midowga Afrika Francisco Madera iyo doorashada kursi ay ku tartamayaan 6 musharax oo ka dhacaya Jowhar wararkii ugu dambeeyay doorashadaasi ayaan eegi doonaa qodobadaasi iyo kuba kale ayaan idin hayaa waa Sabti 16 Abriil 2022 u diyaar garoowa faafahinta wararkaasi markale kulan wacan aan ku bilaabo warkeena kala fadhiga koobaad ayaa kulankiisii koobaad ee golaha shacabka Soomaaliya maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Muqdisho kaasi oo uu shir gudoomiyay Cabdisalaan Axmed Liibaan Dhabancad oo ah gudoomiyaha ku meel gaarka ah ee baarlamaanka ugu horeen waxaa kulanka lagu dhaariyay ilaa 6 mudane oo ka maqnaa munaasabadii dhaarinta ee qamiistii lagu qabtay teendada Afisiyoni ee xirada Xalane gudoomiyaha ku meel gaarka ah oo madasha khudbad ka jeediyay ayaa marka hore ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka iyo sidoo kale shaqada hortaalla baarlamaanka cusub waxaad wada ogtihiin saaxiibayaal xaaladda dalkeena uu ku sugan yahay maanta iyo cadaadiska uu adduunka inugu hayo oo nala leeyahay haddaadan waqtigaasi wax lagu dhammayn wax walba waa xirmayaan ayuu yiri xildhibaan Cabdisalaan Dhabancad sidoo kale wuxuu intaasi ku daray waxa istaagay tiirkii dawladnimada laga bilaabayay waxa dhimanna waxa aan ku kalsoonahay inaad dhameystiri doontaan Dhabancad oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in laga rabo ka baarlamaan ahaan inay dadejiyaan dhameystirka doorashada si looga faa'iideysto waqtiga la haysto intaasi kadib ayuu gudoomiyaha ku meel gaarka ah soo jeediyay inuu dhiso guddiga doorashada ee guddoonka baarlamaanka balse waxaa diiday xildhibaanada iyadoo kadib codeyn loo qaaday xildhibaanada ayaa isku raacay in xubnahaasi loo qaybsado habbeeleed si loogu saleeyo nidaamka 4.5 ee ay wax ku qaybsadaan beelaha Soomaaliyeed waxaan arkay haddii gacanta la taagay inta diidan soo jeedinteeda inay badan tahay marka waxaan rabaa idinka iskala yaqaana inaad beel ahaan laba qof ii keentaan ayuu yiri gudoomiyaha ku meel gaarka ah Cabdisalaan Axmed Liibaan Dhabancad baarlamaanka Soomaaliya oo uu kulankiisii ugu horeeyay ku bilowday diidmo ayaa waxa horyaala shaqo adag oo ay ugu muhiimsan tahay doorashada soo socota ee madaxweynaha waxaad ugu mahadsantii waqtigii la qabsaday inaad ku soo buuxiseen waxaan u hambaliyaynayaa 3 xildhibaan oo ugu dambayso hadda dhaaratay taajir baa noqonaynaa dadka soo badanayaan marka waxa weeye hawshii la isku diray waxaan akhrinayaa 10kii xildhibaan oo la soo xulay inay hawlaha noo qabtaan waxa weeye xildhibaan Xuseen Maxamed Nuur haddii aan la is aqoon horta in qofku istaago la arko soo ma fiicna xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed saddex xildhibaan Nasra Mahdi Araale afar xildhibaan Maxamed Xuseen Haadi shan xildhibaan Dahabo Siisow Maxamuud lix xildhibaan Cumar Shariif Sheek xildhibaan Qaasim Cilmi Seed sideed xildhibaan Cabdullaahi Xasan Rooble sagaal
xildhibaan cali maxamed nuur 10 xildhibaan maxamed abuukar cabdi waxaa la yidhi inbaa geed fuulayoo sida uga degi lahaa marka laan asagoo isla ka deg buu ka dhacay waxna ma gaarin marka wuxuu tanaaba ka dhib yar hadda saaka codsigaad iga diideen tanaaba ka dhib yar waa aad iyo aad baad mahadsantihiin hawshan soo qabta berito waxaan noo ballan 10 subaxnimo saaka 9 la yidhi waa cusbayn hadda waa isbarannay berri waa 10 waxaan idinka codsanayaa salaada maanta ku timaadeen in 10 lagu soo yimaado shirkuna waa noo xiran yahay guddigan la magacaabay ayaa maalinta beri ah yeelanaya kulamadoodii u horeeyey oo ay uga arinsanayaan howlaha qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamaanka qaybaha hore ee wararka National TV ayaa daawanaysaan halkan nagala soco markasta waxaad heli doontaa warar sugan oo xaqiiqo ah xogo hoose oo aan helayno ayaa sheegaya in ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan gobolka Gedo ay qorsheynayaan inay tagaan magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo la filayo inay ka dhacdo doorashada 16 kursi oo kamid ah golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ciidamadan ayaa sida la sheegay isku dayaya inay joojiyaan doorashada halkaasi ka dhacaysa ee uu wado maamulka Jubbaland kadib markii laga soo wareejiyay magaalada Garbaharey ee gobolka Gedo oo la sheegay inaan doorashadaasi lagu qaban karin Ceelwaaq ayaa ku taalo xuduudda Soomaaliya iyo Kenya waxaana la filayaa in amniga doorashada halkaasi ay sugaan ciidamada Kenya ee ka tirsan AMISOM sida aan xogaha ku helnay gobolka Gedo ayaa waxa intiisa badan gacanta ku haya ciidamo taabacsan madaxweynaha mudxiliidkiisa dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isugu jira xooga dalka iyo nisa gaar ahaan qaybta Duufaan waana mid kamid ah sababaha maamulka Jubbaland u diiday inuu doorashada ku qabto magaalada Garbaharey doorashada gobolka Gedo ayaa muddo ahayd xuduntii khilaafyadii keenay dib u dhac doorashada ayada oo ay isku hayeen madaxweyne Farmaajo iyo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo hadda u muuqda inuu loolankaasi ku guuleystay haddii aanu dhicin isbedel kale oo degdeg ah dhinaca kale waxa hadda socdo qorshe lagu qabanayo doorashada Garbaharey sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buulla Gareed oo ku adkaystay in meel aan Garbaharey ahayn aysan doorasho ka dhici karin guddiga hirgelinta doorashooyinka Jubbaland ayaa shalay soo saaray jadwalka doorashada 16 kursi ee lagu qabanayo magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gedo guddiga Siid Jubbaland ayaa sheegay in doorashada Ceelwaaq la qabanayo inta u dhaxaysa 18 ilaa 27 Abriil ee sanadkan ayada oo kursiga ugu soo horeeya oo ah Hob Eber 79 ay doorashadiisa dhacayso 18 bishan Abriil oo ku beegan isniinta soo socota qabashada doorashada kuraasta Ceelwaaq ayaa ka dhigan in dhammaan doorashada golaha shacabka la dhameen doono 27 Abriil maadaama kuraastaasi ay yihiin kuwa kaliya ee harsan ayada oo la filayo in Hirshabeelle ay doorashadeeda dhameyso xilligaasi ka hor Soomaaliya ayaa ku daaday xilliga kala guurka ah waxaana iminka la filayaa inay ka baxdo xaaladan adag oo ay ku soo jirtay muddo sanad ka badan waa hagaag weli baahinta wararkeena ayaan ku guda jirnaa nugu soo bir daawade oo ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran markana ururka midowga Afrika ayaa haatan ku hoolan sidii loo bedeli lahaa wakiilkii ururkaasi u qaabilsan Soomaaliya Francisco Madera oo uu dhawaan dalka ka ciiriyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Engineer Maxamed Xuseen Roble wargeyska East African oo soo xiganayo ilo diblomaasiyadeed ayaa shaaciyay in maalmaha soo socda la bedelayo Madera kadib markii uu xumaaday xiriirka kala dhaxeeya xukuumadda Soomaaliya ee uu hogaamiyo mudane Maxamed Xuseen Roble wararka waxay inta ku darayaan in wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya si weyn loogu cadaadinayo inuu xilka iska casilo si aysan ugu ekaan in shaqada laga eriyay ujeedka ayaa lagu sheegay in midowga Afrika uu doonayo sidii hoos loogu dhigi lahaa xiisadda siyaasadeed ee ka dhalatay eriyada danjirahooda u qaabilsanaa Soomaaliya warbixinta ayaa sidoo kale muujinaysa in ninkan lagu bedelayo Maman Sambo oo u dhashay dalka Niger
Francisco Madera oo loo jaray warqad aan dalka looga baahnayn ayaa waxaa horey loogu eedeeyay inuu farageliyay arrimahan shaqadiisa ahayn iyo in uu markaasi ku kacay hadallo gef ku ah ra'iisul wasaare Roble madaxweynayaashii hore ee dalka iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada. Arrintan waxay ku soo beegmaysaa iyada oo Khamiistii la soo dhaafay gudoomiyaha Midowga Afrika uu shaaca ka qaaday inuu kalsooni buuxda ku qabo Master Madera isaga oo si weyn uga soo horjeestay go'aankii ra'iisul wasaaraha dhinaca kalena taageeray go'aankii madaxweynaha. Si kastaba arrimahan oo idil waxay imaanayaan xilli la bedelay howlgalkii AMISOM ee Soomaaliya ka socday tan iyo 2007 waxaana lagu bedelay magaca ATMIS. waana geynta warkii aad ka daawanayseen ka habari ee nabaday.